Turkiga kadisyo isdaba joog ah. Raadaarkii ugu horreeyey oo Turkiya oo soo qaban kara diyaaradaha dagaalyahanada qarsoodiga ee jiilka shanaad iyo afraad. Sharikadda difaaca iyo tiknoolajiyadda ee Aselsan ayaa markii ugu horreysay daha ka qaaday raadaar 3 geesood oo masaafo dheer ka soo qaban kara diyaaradaha dagaalyahanada ee qarsoodiga, masaafadaas oo gaarayso 600 oo kiiloomitir. Waxaana la qorsheeyey inuu ku shaqeeyo nidaamka gantaalada Sibir ama lagu dhafo nidaamka S-400 ee hadda jira. Waxaa jira wax soo saar militari oo badan oo Turkigu dhowaan soo bandhigay, waxaana ugu khatarsanaa qaybtii saddexaad ee diyaaradaha duuliye-la'aanta ee hubaysan ee Kinji, taasoo lagu rakibay hab casri ah oo awood u leh inay riddo gantaalada lidka ku ah diyaaradaha dagaalyahanada ee qumatiga u kaco, iyo sidoo kale nidaam tashwiish ku furaya difaaca cirka, kaas oo isku sawiraya diyaarad saaxiibtinimo. Waxyaabaa la yaab kale oo Turkigu soo saaray waxaa ka mid ah qalabka gantaal tuuraha balastiga oo sidoo kale loo yaqaano qalcadda Turkiga. Waxa uu gaari karaa masaafo dhan 270 kiiloomitir, isagoo xambaarsan madaxyo qarax ah oo culeyskiisu dhan yahay nus tan iyo culays baaxadeed gaaraya 2500 kiilogaram. Warshadaha militariga Turkiga ayaa horumar baaxad leh oo aad u weyn ka sameeyey dhanka diyaaradaha duuliyaha lahayn iyo mashruuca soo saarista diyaaradaha dagaalka ee jiilka shanaad. Laakiin waxaa muuqata in Turkigu weli uu hayo waxyaabo badan oo la yaab leh oo uu la sugayay sanadka 2022 iyo 2023.